halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. Qodobada ugu doorka roon ee aan wararkeena idinku haynana waxaa ka mid ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo go'aamiyay inaysan Itoobiya buuxin karin wajiga labaad ee biyo-xidheenka Itoobiya oo diyaaradaha gargaarka u sida shacabka Tigreega ku baaqday inay Addis Ababa soo maraan, iyo TPLF oo soo bandhigtay gantaaladii uu Abiy sheegay inuu burburiyay qaybna soo qaatay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe sar gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya, fiidiyowga like sar oo share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada wixii kala bixin ana xagga hoose nagu reeb. ku soo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. marka la isku soo ururiyo doodii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ku saabsanayd xalinta khilaafaadka dowladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee buuxinta wajiga labaad ee biyo-xidheenka Itoobiya ee webiga Niil, waxay 15 dal ee uu ka kooban yahay goluhu si cad ugu sheegeen Itoobiya inaysan buuxin karin wareegga labaad ee biyo-xidheenka GERD, iyadoo aan kala tashanin dalalka ay khusayso ee Masar iyo Suudaan. haddii si kale loo dhigo fikirkaas, wuxuu la macno yahay in Itoobiya cadaadiskii ugu adkaa lagu saarayo isticmaalka biyaha webiga inay uga dambayso ugana amar qaadato dalalka Masar iyo Suudaan oo waxaysan labadaas dal ogolaanin iyo tallaabo aysan ogeyn midna aysan Itoobiya ku dhaqaaqi karin. ugu dambeyn, dhanka Midowga Afrika ayaa la go'aamiyey in khilaafaadka wadamadaas ee kheyraadka biyo-xidheenka webiga Niil lagu xaliyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in diyaaradaha gargaarka wada ee ku socda deegaanka Tigray ay ku khasban yihiin inay soo fadhiistaan gelidda diyaaradaha ee Bole International Airport ka hor inta aysan Maqale u duulin. waxaa xusid mudan inay diyaaradaha gargaarka wada ee hay'adaha gurmadka bini'aadanimo ee caalamiga ah tan iyo intay TPLF dib u qabsatay deegaankooda inay toos uga degayeen caasimadda deegaanka Tigray ee Maqale, iyagoon soo marin garoonka Bole ee Addis Ababa. haddaba dowladda federaalka Itoobiya ma hadda ayay baraarugtay oo ay ogaatay in diyaaradaha gurmadka u sida shacabka Tigreegu ay toos uga degaan Maqale iyagoon marin Addis Ababa? maxaa keenay inay xilligan ka hadlaan iyadoo in ka badan 25 diyaaradood ay ka degeen Maqale? mise shaki gooni ah ayay ka qaadeen diyaaradaha tooska uga degaya Maqale, kaasoo ah inay hub iyo gantaalo u sidaan jamhadda mayalka iyo mowqifka adag ee TPLF? su'aalahan jawaabtooda waxaan ka sugaynaa Itoobiya. jamhadda mowqifka adag ee TPLF ayaa soo bandhigtay gantaalo iyo rokeetyo ay sheegtay inay ku qarsadeen geerashyo dhulka hoostiisa ah oo aysan cidina arag, kuwaasoo ka badbaaday waxay ku sheegeen cadowgii ku soo duulay. waxay TPLF sheegtay inay gantaaladan furfureen kuna xasaysnaayeen dhulka hoostiisa buuro dhowr kilomitir u jira magaalada Maqale. Abiy Ahmed ayaa ku geeraaray in guusha ugu weyn ee uu ka gaadhay dagaalka waqooyi iyo ujeedka ugu weyn ee uu ka lahaa inay ahayd inuu burburiyey qaybna soo rartay hubkii waddanka ee 30 sano lagu kaydinayay Maqale, iyo weliba warshadihii hubka iyo rasaasta soo saari jiray inuu daakum ka dhigay. taas beddelkeedii TPLF ayaa shalay uun beenisay arrintaas iyo gantaalihii waaweynaa in la bilaqaystay, balse ay ku kaydsanaayeen iyagoo furfuran geerashyo dhulka hoostiisa ah, iyagoo soo bandhigay gantaalo waaweyn oo ku rakiban isxambaarada loogu talagalay
waxaana ku goodiyeen inay Gondar, Bahardar iyo Asmara digo iyo dambaska ka dhigi doonaan.